إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، موضوع كلمة نعاوة عنوانك محاضرته وسيدو ولالك الشيء أمراض القلوب وعلاجها. cudurrada qalbiga gala iyo daaweyntooda. maxaa lagu daaweeyaa, see loo daaweeya? waa mowduuc runtii aada muhiim u ah, aadna aan ugu baahannahay dhammaanteen, lianna meeshuu ku saabsan yahay ee uu ka hadlayo baa waxay tahay meel aada muhiim u ah. waa xarunta jidhka wey. nabigeenna tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiidka nucmaan ibni bashiir fi saxiix aakhirkiisa ayuu nabigu ku tilmaamay sal alla alay wasalam: alaa wa ina fi ljasadi mudqa idaa salaxat صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. jidhka ibni aadamka waxaa ku jira buu nebigu uri sal lla alay wasalam cad yar oo hilib ah. waxaa laga cabiray mudqa. mudqada waxaa la yidhaahdaa wixii hal mar inta afka la geliyo la calalin karo. cad yar oo hiliba ayaa jidhka ku dhex jira. cadkaa hilibkaa hadduu hagaago oo fiicnaado, jidhku waa hagaagaya. cadkaasi hadduu hallaabana, jidhka intiisa kale waa hallaabaya. waa qalbiga buu nebigu yihi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. bimacnaa waa markaskii ama xaruntii jidhka aadamaha waa. waa maxalu اliimaan wاlkufr. mabaadi'da meesha ay gasho wey. waa maxalu الruux, asalka waa wey. ibn اlqayim calayh raxmat ullah isagoo xadiidkaa ka qaadanaya markuu ahmiyadda tilmaamaya qalbiga, wuxuu yidhi qalbigu waa boqor, xubnuhuna waa ciidankiisii wey. boqorku hadduu hagaago, amarka ka soo fulaya uu siinayo ciidankiisa iyo wasiirada iyo dowladda inteeda kale, amarkuu siinayo amar fiican buu noqonaya. hadduu madaxa sare iyo boqorku hallaabana, amarka ka soo fulaya uu dowladda siinayo waa amar hallaysan, wabitaali waa hallaabaysa. xubnuhu marka way amar qaataan un. amarkuu isagu siiyo unbay qaataan. laakiin meesha wax dejisa, wax taqdiidisa, fikirta, go-aanka gaadha waa qalbiga wey. ahmiyadaasuu marka leeyahay. sidaas daraaddeed ayaa waxaa la siiyey cinaayo khaasa. si gooniya baa mudnaan loo siiyey, mudnaan ka badan midda la siiyey jidhka. mudnaan ka badan midda la siiyey jidhka aadamaha ayaa qalbiga la siiyey. oo sidii looga shaqayn lahaa, sidii loo hagaajin lahaa, sidii axwaashiisa laysu bari lahaa, sida amraadda gasha iyo loo cilaajin lahaa,
cinaayo khaas ah oo aad u xeel dheer baa shareecadu siisay laana ahmiyadda iyo mudnaanta uu leeyahay ayay markaasi ku salaysantoo ka duulaysa qulubta aadamaha quraanka kariimka markaad fiirisay xadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam qaybay u qaybsanta wanagi ka hadlaynay darsigeeni xalay ku saabsanayd al-makhraj min al-fitan ku saabsana xadiidkii Xudayfa waa kii aan ku tilmaanay qalbigu waa meesha fitanku marka hore loo bandhigo waa meesha weerarka ugu horeeya uu ku dhaco mid yeela iyo mid diidaba qalbigu waa maxallu nadari illaahi min cabdihi tabaaraka wa tacaala waa meesha ilaahay addoonkiisa uu ka fiirinayo ee uu kala mucaamaloonayo waa kii xadiidka nabigeennu ahaa sal alla alayh wasalam ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa acmaalikum laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa ajsaadikum walakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum ilaahay ma fiiriyo jidhkiinna iyo sawiradiinna toona laakiin allah wuxuu fiiriyaa qalbigiinna iyo acmaashiinnu fiiriyaa yacni qalbiga iyo waxa ka dhalanaya oo camalka ah taasaa ilaahay agtiisa miisaanka fuulaya laakiin ruuxa jidhkiisa ma xoog badan yahay ma tabar yar yahay muxuu ahaayey ma suuradiisu ma quruxsan tahay ma fool xun tahay ma dheer yahay ma gaaban yahay ilaahay miisaankiisa waxba kuma aha dhankaa lagama fiiriyo laakiin waxaa la fiiriyaa maxaa qalbigiisa ku jira maxaase ka dhashay oo xubnuhu sameeyeen oo acmaasha taasaa ilaahay fiiriyaa tabaaraka wa tacaala marka ahmiyad aad u weyn buu marka leeyahay addoonkana waxaa looga baahan yahay inuu mudnaanta uu leeyahay uu qalbiga siiyo qalbigu mudnaanta uu leeyahay salafku waxay dhihi jireen ridwaanullaahi calayhim maanan ka zuulin inaan quluubtannada cilaajinayno oon la dadaalayno oon ku mashquulayno oo aanu muxuu ahay wahaakada camal kasta oo uu ruuxu qabanayo wuxuu u noqonayaa waxa qalbiga ku jira carabkaagu wuxuu samaynayo waxaa lagu miisaamayaa oo u laabanayaa maxaa qalbiga ku jira niyadda uu hadalkaasi ku soo baxay maxuu ahaa xubnaha kale waxay sameeyaan waxaa dib loogu celinayaa maxaa qalbiga ku jiray oo xubnahani ay ku sameeyeen shaygan saas daraaddeed baa xadiidkii jaliilka ah waa kii nabigeenu sal alla alay wasalam inama alacmaalu binniyaat camal oo dhan niyadu u noqonaya camal oo dhan niyaduna waa camalun min acmaali alqalbi waa acmaasha quluubta mid ka mida weeye niyadu iyo maqaasidu sidaas daraaddeed arrintaasi waxay tilmaamaysaa quluubta iyo ahmiyadda ay leedahay mar hadday sidaas tahay waa in marka la siiyo qadar ku filan oo mudnaana in la siiyo oo la barto quluubta jidhka waa naqaanaa dabeecaddiisa waa naqaanaa wuxuu u baahan yahay waa naqaanaa maxaa dhibaato u geysta waa naqaanaa hadduu jirrado xaggee lala aadaayo yaa daaweeya waa naqaanaa muxuu ahaayey hadday dhibaato ku timaado see loola tacaala waa naqaanaa laakiin jidhka qaybta ugu muhiimsan oo qalbiga iyo ruuxdii ah wax badan kama naqaano wabitaali waxay u baahan tahay in laga barto waxyiga rabbi tabaaraka wa tacaala oo axaadiista nebiga qur-aanka kariimka iyo axaadiista isugu jira markaan u laabanno qur-aanka iyo axaadiista nebiga sal alla alay wasalam waxaa inoo soo baxaysa quluubtu xaaladaha maraya marka la fiiriyo qaybay noqotaa oo qur-aanku ku tilmaamay quluubta qaarkood waxaa lagu sifeeyey oo lagu tilmaamay inay tahay quluub ama qalbi meyd oo bakti ah qalbi meyd ah oo bakti ah ruuxii lahaa waa ruux naftii aadamuhu ku jirto waa shaqaynhayaa waa ordayaa waa xamaalahayaa muxuu ahaay yani waa tabcahayaa ruuxii waaka waa ordahayaa laakiin qalbigiisu waa meyd waana bakti
الله تبارك وتعالى قرآن كريم كأه أيوم يلكم إذا كنت المام وربي وحي وما يستوي الأحياء ولا الأموات كوا بختك ميت كأه هي كوا النول مسنا وحلقة وذا كوا قلوب تود النوشة أو إيمانك كن نوشة أو خيرك كن نوشة هي كوا قلوب تود ميت كتهايو إيمانك أوسنجلين لا وذا سمسنا بمعنى لا يستوي المؤمن والكافر وكلوه كافر كميت مع الله مقعوي لأنه ميت القلب وه مؤمن كان حي وحلو يري لأن حياته كلا حيس حيوانات كي النوله هردن تالق ما هذا مركا وحياة خاصة وحياة القلوب حياة القلوب كان حياة القلوب كان أصل وحو أما دد النوله يسوى إيمانك مركا قلوب تقار كود وقلوب ميتة وقلوب بختئة والنولين تكلا آيات كلا مدة عبر يسير رب الله تبارك وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه عد بختئ هيج والنولين وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منه markii hore bakti buu ahaa kadibna waa la nooleeyay macnaha waxa laga wadaa gaal buu ahaa qalbigiisu meyd yahay iimaan baa la geliyay qalbigiisi waa la nooleeyay kadibna nuur baa la siiyay wax ku kala saaro wax ku kala sooco wax ku uu kala baxaan ka iyo ma isku mid ba mid qalbigiisuna bakti yahay hadana mugdiye ku dhex jira isku mid ma marka waxa la isgarab dhigayaa مؤمنكي قلبي سنولادي هذانا إفتينك هيستي علمك إفتينك وحكوك على أرك يطش مجدجاسي وحكوك على سارة هيو ماشو لقطة دقة يو محارب كإيمانة يو مع مصلحة يو نرش حقيقو هاكسنتا يشيتكو قادة يو ونرش شرنا وهو إفتين سنتا هي مد قلبي سنة ميدي هذانا مجدية كتيرسانو تجدون لوضع مسيميهين مسينو سلام معناها النبي حديث كيسات المامي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت من النبي صلى الله عليه وسلم روح إلهي حصية يكأن حسين وحيكات لغيهين مد ميد وبختية يمد نول بيكات لغيهين واسيدي مد نول يمد بختية وكالوه قلوب تقاركوت صفاتها سيليه وقلوب بختية ونولين بالنفة لما قلينين نوع الله هذا القرآن كنت المامي وحويا وقلوب جرن القلب المريض وقلب جرن جرد قلوب تكون عداي علماء وحيدا والله مت إما مرض الشهوة وإما مرض الشبهة عذر الشهوة كيمت أما عذر الشبهة الشبهة هذا وحلي هذا ووح عن دين أهين oo diin ahaan isu ka tusaway waxaad ugu qanacsan tahay inuu diin waxaad ugu qanacsan tahay inuu ilaahay ku dhaweynay waxaad ugu qanacsan tahay inaad ilaahay ridda kaga helayso hadana maca dalika diin ma aha wada ku khaldan wixii sidaas oo kala wax la yiraahdaa shubha la dhaha waa wax isu ka ku khalday xujo isu ka ekaysiiyay diin isaga ka dhigay ama lagugu ekaysiyo lagaaga dhigay diin ahaan u qaadatay waxa meesha soo galaya marka bidacii khuraafaadkii waxyaalahaas oo dhan diinta u yara eegeen diinta ahayn ee diinta loo ekaysiinayo cudurkaasi waxa la yiraahdaa marad ashubha nooca labaad waa maradka loo yaqaano marad ashahwa shahawaadka waxyaalaha naftu jeceshahay waa adduunyada shahawaadka xoolaha shahawaadka milkiga iyo boqortooyada shahawaadka labada jinsi dhexdooda ah yaani waxyaalaha naftu jeceshay doonayso halkaasi cudur kaga yimaadana waxa la dhahaa maradu shahwa leeyahay quraanka kariimka labadaba waa tilmaamay Allah tabaaraka wa taala munaafiqiinta markuu ka hadlay fi qulubihim marad wali qalbiyadooda cudur baa ku jira طبعا waa cudurkaasi waa cudur nifaaq waa nifaaq waa cudurada kamida gaalnimadu waa cudur nifaaq waa cudur muxuu ahay
itibaacu alhawa waa cudur marka quluubtooda cudur baa ku jira nooca labaad ee cudurkana aayadda kale alla ku tilmaamay fi suurati al-ahzab ku jirta markuu la hadlay rabbi tabaaraka wa tacaala dumarka falaa takhdacna bilqowl fayatmaca alladii fii qalbihi marad waqulna qowla macruufa alla wuxuu yidhi hadalka markaad ragga la hadlaysaan hadalka ha u jilcinina ha dabcinina oo haddaad hadalka dabcisaan oo jilcisaan waxaa damac galaya midkii qalbiga uu cudurku kaga jiray waa cudur noocee waa cudur shahwo ah ninkii markii horeba damaca dumar ku jiray oo qalbigiisuba arrintaasi ka buuxeen haweenay hadalka u jajabinaysa u jilcanaysa markuu arko waa waraabo uun aad hilib ku hor wado waay waraabo gaajaysan adiga hilib hor dhigtay soo ku daba ordi maayo marka falaa takhdacna bilqowli fayatmaca alladii fii qalbihi marad waa maradu shahwa wey markaas marka labadaa cudurba markay ku dhacaan qalbiga ama mid ka mida waxaa la yidhahdaa qalbi mariida la dhaha qalbigu waa jiran ma fayooba markaas waa nooca labaad sifaadka qaarkood oo qulubta qur-aanku siiye waxaa ka mid a alqalbu alqaasi waa qalbi ingegan qalbi dabacsan maaha qalbi jilicsan maaha khayrka uma jilicsana markii la wacdiyo ma ta'athuro markii wax loo sheego ma qaato markuu cilmi maqlo kuma intifaaco waxba iskama bedelaan meeshiisii buu taagan wax kasta oo lagu waana qaato haddii la tuso isma bedelayo aayaadka ilaahay ee bedelo qulubta ama aayaadka kowniga ama aayaadka tanziiliga ah oo qulubta saamayn weyn ku leh isaga ma saamaynayso meeshiisii buu ka joogaa waa geedkaa biyaha ku dhex ingegay waay wax kasta adigu sheeg ilan sideedaba dhirta iyo noolaha iyo hadduu ingego oo meel biyo la-aana ku ingego cillada uu la ingegayna ay tahay biyo la-aan wuxuu u baahan inuu biyo helo markuu biyo heloba waa qoyaya laakiin maadadii qoynaysayba dhexdeedii hadduu ku ingego ingejiso waxaa rajo laga qabaa inuu dib u qoyahay rajadeeda ma jirto marka waa ruux ingege wey waa qalbigiisii waa ingege qur-aanka kariimku kuwuu tilmaamaya wey rabbi maruu leeyahay tabaaraka wa tacaala fawaylun lilqaasiyati quluubuhum min dikri illah yacni halaag iyo aafo iyo cadaab iyo waxaa iska leh dadka ay quluubtoodu ingegtay oy adkaatay oo ilaahay dikrigiisa ka ingegtay inta badanna waxay dhacdaa addoonka waxaa cudurka cuquubadaasi ku dhacdaa waa cuquubaad ilahay xaggiisa ka yimaado wey qalbigaaga in la ingejiyo cuquubadaasina inta badan waxay ku dhacdaa ruuxa laba mid aayaad ilaahay oo kowni ah baa si fiican loo tusay aayadihii waxba ku qaadan waayo aayaadka rabbi ee tanziiliga iyo qur'aanka baa ilaahay u furay waxba waa ku qaadan waayo natiijada ka dhalata waa inuu qalbigiisu ingego waayo fawaylun lilqaasiyati quluubuhum min dikri illahi meeshay ku imaanayso siyaaqay ku imaanayso waa siyaaq ka hadlaya qur'aanka kariimka ka hadlaya waa aayaadka kowniga ana fi suurati albaqara rabbi tabaaraka wa tacaala markuu ka hadlayay qisadii reer bani israa'iil intay ay ruux dileen oo ay ruuxii kuwii dilay inkireen oo isku riixriixeen idinkaa dilay iyo maanaan dilin iyo muran dhex maray alla tabaaraka wa tacaala uu amar la siiyey iyagii oo la yidhi neef loo ah gowraca kadibna neefka qaybihiisa qayb ka mid ah ee ku dhufta waa soo noolaanaya sidii bay akhiiran markii ugu dambeeyey adugu sameeyeen ilaahay tabaaraka wa tacaala ruuxii dhintay buu soo noolay hortoodaa la keenay wixii la isku haystay waa la kala saaray naf dhimatay oo la soo nooleeyey oo hortooda la keenay waa aayad aada u cad waay aaya min aayaat illaahi aayaddii iyada ahayd markay waxba ku qaadan waayeen maxaa laga dambaysiiyey uma qasat quluubukum min bacdi dalika fahiya kalxijaarati aw ashaddu qaswa waina min alxijaarati lama yatafajaru minhu alanhaar waina minha lama yashaqaqu fayakhruju minhu almaa
waina minha lama yahbitu min khashyati اllah wama allahu bigaafilin cama tacmaluun. saas daraaddeed ruuxa haddii ay uusan waxba arkin oo uu jaahil yahay oon waxba loo sheegin oo sidaasay qalbigiisu u ingegan yahay wuu dhaamaa midka intuu diinta dhex galay oo wax ka arkay oo wax ka bartay haddana kitaab xoorka ah ka dhex siibtay ama dhexdeediiba ku ingegay wax kastoo la akhriyo waa adagta qalbigiisu ma saamoobahay. waa dad fara badan oo saxwada soo maray oo cilmiga soo maray oo laga yaabo ducaadnimo inay soo mareen oo laga yaabo inay culimonimo soo mareen oo muxuu ahaayey wixii haddana ka dhex siibtay oo adiga aayaddii aad ku jilcin lahayd markaad soo wadaba wuuba fahmayaaba maxaaba akhrinba adiga. midkan caamayga waxaa laga yaabaa 2 aayadood iyo qur-aan xadiisuusan maqlayn haddaad waxoogaa ku yara garaacdo waa iska jilcaya. laakiin kan xadiiskaa soo wadana wuu garan aayaddana wuu garan horuuba u marayba maxaad ku bedeli marka. waa masale adag waay. marka quluubtaas ingegtay waa arrin aad iyo aad halis u ah khatarteedana leh. keliyana kuma dhacda gaalo iyo munaafiqiin kuma dhacdee dad ahluliimaan ay ku dhacdaa bal culimay ku dhacdaa oo ducaad bay ku dhacdaa oo dalabatulcilmi bay ku dhacdaa. waxaa ka mid a quluubta sifaadka ay leeyihiin iyo qaybahooda cudurrada gala cudur la yidhahdo indho la'aan. quluubta qaar baa indho beela ilan sida jidhku indho u leeyahay oo 2 indhood ee madaxa ku yaalla siduu u leeyahay baa qalbiguna indho u leeyahay. 2 indho beel waxaa daran inuu qalbigu indho beelo. waata qur-aanka rabbi ku sheegay tabaaraka wa tacala uu yidhi fainaha laa tacma alabsaar walaakin tacma alquluubu alatii fi suduur. indhahan madaxa ku yaalla indho beelidoodu iyo inaad weydaayey wax weyn ma ah. hadda ogow aadamaha jidhkiisa wax uu waayo waxa ugu qaalisan indhaha ugu qaalisan. haddana iyagii waxaa laga dhigay wax weynba ma aha markii la garab dhigo maxay indho beelidda qalbiga. 2dan midla oo waxaa jira qalbiga indhahoodii ay u furan yihiin ood yaabayso ilaahay tabaaraka wa tacaala mawhibada uu siiyey iyo sida qalbigiisu u iftiimaya u nuuray. marka indhabeelka rasmiga waa indhabeelka qalbiga ku dhaco. qalbigu markuu indhabeelo maxaa dhacaya xaq iyo baadil ma kala garanayo. shirkigii iyo tawxiidkii baa isaga qasmay, bidcadii iyo sunnadii baa isaga qasmaysa, taacadii iyo macsiyadii baa isaga qasmaysa, xaqii iyo baatilkii baa isaga qasmaya. waxa ma kala saari karo. yacni adiga waxa weeyaan waa ruux indhala oo mugdi hagabsanayo kale. ruux markuu indhala yahay gacantana aan la haynin mugdina uu iska hagabsanayo isagu iska socdo miyuu kala arkaya. wuxuu ku istaagi ma bohol buu ku dhici ma abeesuu ku istaagi ma balaaya qaniin waxba lama socdo. saasoo kale way qalbigu markuu indhabeelo waxba ma kala saari karo. marka quluubtu qaar baa indhala-aantaasi ku dhacda. waxaa ka mid a quluubta qaar qur-aanka kariimka uu ku tilmaamay inay tahay quluub mugdiyo ku jirta, qalbi madoobaaday oo isaga dhanba mugdi noqday. dabcan iftiinkii waay. cagsigeeda waxaa ah quluub iftiimaysa oo nuurku ka baxayo. ilaahay tabaaraka wa tacaala miaal cajo badan uu ka bixiyey iftiinkii nuur ka baxay. quluubtaasi mugdiga ku jirtaay qur-aanka kariimka markuu tusaalaynayay rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi aw ka dulumaatin fii baxrin lujiyin yaghshaahu mawjun min fawqihi saxaabun dulumaatun bacduha fawqa bacdin ida akhraja yadahu lam yakad yaraaha waman lam yajcal illaahu lahu nuuran fama lahu min nuur. allah tabaaraka wa tacala wuxuu yidhi aw ka dulumaat xaalkii gaaladaa laga hadlay mugdiyo oo kale fii baxrin lujiyin bad mool ah dhexdeeda ku jira. yacni bad aad salkeedu u fog yahay ayuu gudaheeda salkeeda yaalla. korkiisa waxaa daboolaya hir, biyihii baa ka koreeya, biyaha korkooda hir baa yaalla. hirkaasi mid kalaa ka sii koreeya, hirkaa labaadna waxaa ka sii koreeya daruurtii baa ka sii koreysa. waa imise mugdi waa
cirka daruul baa saaran mugdi bay keenaysaa hir mugdi buu keenaya hir labaad mugdi buu keenaya intaasuu ka sii hooseeya markaasaa rabbi wuxuu ka cabiray idaa akhraja yadahu lam yakad yaraaha gacantiisa hadduu bixiyo sidaa dhaho maba arki karaba ma sigayo inuu arko ma arki karo gacantiisa jirkiisii qaybo ka mida ma arkahay meeshaasi marka waxaa la cabirayaa gaalka qalbigiisu inuu yahay qalbi mugdiyo ku dhex jira intaasoo hal mugdi keliya maaha mugdiyo fara badan shirkigii jahligii intaasoo mugdi baa qalbigani ku jira waxaa cagsigiisa ah qalbiga ka horeeye la soo warramay ee Allah tabaaraka wa tacaala ka soo warramay qalbiga ruuxa mu'minka iyo siduu u iftiimay Allahu nuuru as-samawati wal ard mathalu nuurihi kamishkatin fi misbah wuxuu leeyahay Ubay ibn Ka'b markuu fasirayo mathalu nuurihi fi qalbi al-mu'min bule ilaahay nuurkiisa mu'minka qalbigiisa ka baxaya ee ka iftiimayay wuxuu xalugu mithaaliyay waa ka tusaalaha laga bixiyay kamishkatin fiha misbah المصباح في زجاجة وهكذا إلى آخر الآية marka qalbiga mu'minkuna waa iftiimaya qalbiga gaalkuna mugdiyo ku jira qulubta qaarkood waxa laga cabiray alqalbu almuqaffal qalbi isaga dhanba la qufulay oo xiran shar baa ku sii jiray sharkii ku jiray baa lagu qufulay meelihii wax ka soo geli lahayo dhan baa laga xiray saas daraadeed shar ku jirayna ka bixi maayo khayr kor ka yimidna soo geli maayo meelo badan baa quraanku arinta iyada ku sheegay oo waxa kamida qowlullaahi tabaaraka wa tacaala afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa quluubin aqfaaluha war qur'aanka miyaynan tadabburaynin oo macnihiisa dhuuxaynin oo ina u fiirsanaynin mise quluubtooda qufullaa saaran mise quluubtii waa xidhanta marka quluub xidhan baa jirta qalbigu markuu khayrka u furaya markaasuu wax qaadanaya إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ومركي لغا سو ورمي مشهد كميدا مشاهدتي قيامته iyo sida yani hawshu u adag tahay oo laga soo bilaabay geeridii iyo xaaladda marka Ilaahay loo hortagay iyo sida loo qaybsami doono iyo xaaladda markii laga soo warramay waxa la yiri inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid marka qalbi wixii qaadan karo oo weelayn karo oo furan oo u diyaarsan markaas ruuxu intifaacsan kara laakiin qalbi aan u diyaarsanayn oo wasakhaysan ama qufulana wixii ba uusan gali kareenin maanta dhan hadaad garaacdo wax badani ka iimaan maayo arimahaasi marka wax weeyaan waxay qayb ka tahay inaan bal sawir ka bixino qulubta aadamuhu iyo say u kala duwan tahay quraanka kariimka iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam siyaabaha ay wax uga sheegtay waxa kamida qalbi waxa soo dhan ka fayow qulubta waxa kamida qalbi waxa soo dhan ka fayow cudurrada soo dhan ka fayow aan jiranayn fayow وانا مدك إلهي تبارك وتعالى جندي سجلي دونا بلا عذاب ولا حساب وفيو يهي وحكف يو يهي شركي وحكف يو يهي بدعي وحكف يو يهي غلقي حقدي وحكف يو يهي حمانتي وقلبي فيوه وككوي من نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هذا الكيس مركو لها ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم مال لنا حوله يعرور وحبا أنفعين إلا عدي إلهي أولت ماذا قلبي فيومي فيومي سوحا كم ذا إنه قلبي فيوي هاي دتك أهل الإيمان مؤمنين تينو فيوي أو غلي يا حقدي يا نعيب يا عداوات هذا المسلمين تأقبل يعني سلامة الصدر ووحن ليسكهل كريم لكن روحي إلهي سي تبارك وتعالى ووحي لها درجات كأسر يتشنظ اللي وها لك أبد حديث صحيحة أما حسن كها وكيت المامة النبي قلنا صلوات ربي وسلامه عليه الصحابة دي سلفر ليه إن رسولكم صحابة كويري نبا إدين سوقلي دون أهل الجنة
waxyar haddii la sugayba nin waxaa soo galay soo weyse qaatay oo weysadii ka dhibcayso oo kabaha gacanta ku wata maalintii labaad baa haddana nabigu wuxuu ku yidhi waxaa idiin soo geli doona nin ahlu janna waa la sugay mise ninkii oo sidiisii ah waa isla ninkii shalay baa haddana soo galay maalinkii saddexaad buu sidoo kale nabigu wuxuu yidhi waxaa idiin soo geli doona nin ahlu janna waa la sugay haddii la fiiriyey waaba isla isagiiba waa haddana sidii ah saxaabadu ridwaanullaahi calayhim waxay ahaan jireen markii janno iyo naar iyo la sheego qadiyadoodu xasaas bay ahaan jirtay waxa naar ka fogeynayana aad bay u raadin jireen waxa janno keenahayana aad bay u raadin jireen meeshaasaa marka nin raggii ka mid ah wuxuu yidhi bal ninkan waxa janno loogu markhaati kacay 3 goor janno loogu qiray baan ka wardoonahaya ninkiibu u tegey wuxuu ku yidhi warniyo odaygii aabahayaan isku yara dhacnay marka bal odaygu intuu yara cadho baaba ahay muxuu ahay cadho waxay dhahaan yani waayeel waa la bariisiyaa bal xoogaa odaygu intuu soo cadhadiisu baaba aysan rabaa inaan bal dhowr habeen kula yara seexay xaafadda kula joogo soo dhow buu ku yidhi waa la joogay ninkan wuxuu filayaa marka habeenkii markuu guriga la seexday habeen barkii inuu salaad badan u kaco oo maalintii inuu sooman yahay oo sadaqaad iyo khayraad fara badan wax badan buu ka filahaya hadduu la seexday oo gurigii la joogay ninkii habeenkii salaad badanba kuma arkin maalintiibu haddana la joogay maba soomanaba wuxuu is yidhi war xalay malaa hurda la tagtay wuu caajisay baa laga yaaba bal caawana fiiri habeenkii labaad hadduu fiiri waaba sidiiba ninkii maalintii labaad maba sooman waa iska caadi maalinkii saddexaad waa sidoo kale ninkii wax isbedela ma leh waa yaabay marka waa isxayn waay wuxuu yidhi warniyo wax dhiba ma jirine nebigaan maqlay sal alla alay wasalam oo 3 goor bishaaradaa bixinahay inaan arrintaada ogaadaanaan rabay wax weynna hadda kuguma arkin maxaa intan kuu dheer buu ku yidhi kolli waaba ku arkaayo muxuu ahaayey wax weyn oo hadda ragga aad la dheer tahay oo janno lagugu sheegay iima muuqatee laakiin maxaa iga qarsoon markaasuu wuxuu ku yidhi intaa waxaan ahayn ma hayo buu allahuma hadday ka tegi weydo wuxuu yidhi weligay ma seexanin anigoo qalbiga ruux mu'mina wax ugu haya markaasuu wuxuu yidhi sirtu waa taas buu yidhi waana midda aan la heli karin buu bimacnaa salaad badan iyo soom badan iyo cibaadaad fara badan iyo meeshooda ha ahaadeen laakiin qalbi fayow oo muslimiinta u fayow oo khayrka la jecel oon cuqdad u haynin oon cadaawad u haynin oo kii dhibaato u geystay iska saamaxa oo cafiya qalbi noocaas adiga ma iska heli karta quluubteenna hadda haddii la dilaaciyo imisaa loogu tegi lahaa aafaad iyo balaaye iyo nacayb iyo xiqdi iyo marka waa midda aan la heli karin saas daraaddeed yowma laa yanfacu maalun walaa banuuna ilaa man ata allaha biqalbin saliim fayow oo caafimaad qaba inta haddaan kaga gudbo waxaan wax yar tilmaamayaa maxaa lagu daaweeyaa quluubta wuxuu u baahan yahay qalbigu sida jidhkaba cinaayo loo siiyo saan sooreba u tilmaanay in qalbigana cinaayo loo siiyo jidhka aadamaha xubin aan u baahnayn in laga dadaalo ma jiro afkaagu wuxuu u baahan yahay inaad daahiriso oo aad cadaydo oo aad dhaqdo oo aad ka warhayso jidhkaagu wuxuu u baahan yahay inaad nadiifiso haddaadan nadiifin maxaa dhacaya waa soo uraya soo ma marka dambe adigii uu kugu yaalay baaba karaahaysanayaba war waxaan urahaya yaase iga dhah waa jidhkii waa wakadalika qalbigu wuxuu u baahan yahay cinaayo noocaas oo kale haddaan laga shaqaynin oo ruuxa la siiyey uusan ka dadaalin oo uusan nadiifinin oo daahirinin sidaasoo kale ayuu qalbigu u wasakhoobaya
wasakoobidiisa iyo dhimashadiisa ilaa heer wuxuu gaadhayaa waa jiranaya waa wasakoobaya waa jiranaya marka dambana waaba dhimanayaaba mar hadduu dhintana dareenkaa ka tegaya jidhku hadduu dhinto soo dareenku kama tago qalbiguna markuu dhinto dareenkaa ka tegaya aduu wax kasta akhri waxyaalaha lagu daaweeyey qalbiga waxaa ka mid a muxuu ahaayey aliimaan الصادق ruuxu inuu iimaan dhab alla yimaado waxaan soo tilmaannay oon soo sheegnay inuu iimaanku yahay maaddatu xayaati اlquluub quluubta noloshooda maaddada noolaysa waa iimaanka yaa ayuha aladiina aamanuu اstajiibuu lilahi walirasuuli إida dacaakum lima yuxyiikum allah iyo rasuulkiisa yeela oo ajiiba markuu idinku yeedho rasuulku wax idin noolaynaya iimaanka kowka ah saas daraaddeed aliimaan marka hore qalbiga inuu galo iimaan saxa uu galo oo horta qalbigii nolol helo qodobka labaad ama daawada labaad ee quluubta lagu daaweeyo lagu hagaajiyo waxa weeye alcilmu الnaafic cilmu اlkitaab waالsunna kitaabka alle iyo sunnadii nebiga sal lla alay wasalam inuu ruuxu barto cilmigaasi qalbiga wuxuu ka saarayaa mugdigii iftiin buu siinaya lanna iftiinka ugu horeeya bacda aliimaan ee qalbigu helo waa cilmiga sidaas daraaddeed baa cilmiga waxaa laga hormariyey wax kastaa laga hormariyey waa ka imaamu albukhaari caleyh raxmat ullah fi saxiixii ku baabeeyey baabun alcilmu qabla alqowli waalcamal cilmiga wuxuu ka horeeyaa hadalka iyo samaynta labadaba intaadan xubnahaa ku samaynin baro oo intaan carabkaagu ku dhawaaqin baro xataa ilaahay tawxiidkiibuu ka hormariyey markaasuu keenay aayaddii fii suurati moxamed ku jirtay faclam annahu laa ilaaha ila allah alimaam ibnu munayir calayhi raxmat ullah markuu tarjamadaasi bukhaari furfurahayey ama uu sharxayey baa wuxuu yidhi waxa cilmiga looga hormariyey camalka iyo qowlka labadaba lianna cilmiga niyaduu saxayaa buu yidhi niyaduna waxay saxaysaa buu yidhi qowlkii iyo ficilkii bay saxaysaa buu yidhi yacni qasadku qalbiga qasadkiisu waa inuu cilmi ka horeeyo wailaa wuxuu u qastayo maba garanaya soo ma sax baa mise waa khata saas daraaddeed awalan cilmiga kadibna calaa asaasi alcilmi bay niyada saxdii iyo qasadka saxdii ku imaan wa bacda alqasdi saxiix baa waxaa imaanaya qowlkii iyo ficilkii iyagu ku dhismaya halkaasaad ka garan kartaan marka muhimadda iyo meesha ay shareecadu dhigtay aqoonta culuumta diiniga ilaa lagu waajibiyey ruux kastoo muslima rag ha noqdo dumar ha noqdo dalabu اlcilmi fariidatun cala kuli muslim fariida laga cabiray xataa waajib lagama cabirin waa lafdi uusan khilaaf iyo shaki geli karin dalabka cilmiga shareecadu ruux kasta oo muslimay waajib ku tahay marka waxyaalaha quluubta iftiimiya oo muxuu ahay daaweeya yuu asaas ka yahay cilmiga shareecadu waxaa ka mid ah alcamal الصaalix daacada alle iyo camalka wanaagsan ee alle jecel yahay salaadii soonkii xajkii sekadii sadaqadii dacwadii iyo diinta faafinteeda khayraadka wanaagga iyaga oo ruuxu samaynayo waxay saamayn weyn ku yeelanaysaa qalbigiisa in ay daaweeyaan cudurro badan bay qalbiga ka saaraysaa saas way macnaha salaadda cudurray ka saaraysa waa cudurro wax saari kara uusan jirin salaadda aynan ahayn soonkaad arkaysaan qalbiga wuxuu ka saarayaa cudurro khaas ah sadaqadu waxay ka saaraysaa cudurro khaas bukhliga iyo fara adayga iyo gacan adayga iyo lexjeclada faraha badan waa cudurro sadaqadii baa saaraysa xajkii intaba waa iska saaran yahay oo cudurruu saaraya acmaashan saalixa marka cudur waxay daaweynaysaa quluubtii bay daaweynaysaa qalbigii waa degayaa marka waa xidhiir rabbiga tabaaraka watacaala saas daraaddeed baa rabbigeen tabaaraka watacaala wuxuu yidhi man camila صaalixan min dakarin aw untha wahuwa mu'min falanuxyiyannahu xayaatan طayiba ruuxii iimaan iyo camal saalixa laga helo nolol wanaagsan baan noolaynaynaa waxay yidhahdaan culimmadu nolosha wanaagsan qaybtaa hore waxaa laga hadlayaa adduunka
maxaa aakharo waxa dib baa laga sheegayo walanajziyannahum ajrahum biahsani ma kaanuu yacmaluun saas daraadeed xayaatan tayiba shaki male inay soo galayso adduunka waxaa la siinayaa deganaansho nolol degan raaxo qalbi xasiloon muxuu ku imaanayaa iimaanka iyo camalka saalixa qalbigii marka waa degaya marka camalka saalixa iyo taacada rabbi tabaaraka wa tacaala laana waa xidhiir rabbiga qalbigaad arkaysaan iyo xubinka isaga ah waxa uu quuto ee quudka u ah waa xidhiirka rabbigii waa taacada rabbi tabaaraka wa tacaala taacada rabbigii saas daraadeed adoonba adoonku ka taaca badan yahay qalbigiisu waa ka degan yahay quut القلوب baa ku yidhahdaa waa quut القلوب waa quudkii qalbiyada waa xooggii ruuxa mu'minka ah sheekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah waa kii lahaa dikrigayga iyo wirdigayga haddaan ka tago awooddaydaa dhacaysa yani ruuxaaniyaadka ruuxu wuxuu ku dhisan yahay awooddiisu yani waxa weye dikriga rabbi tabaaraka wa tacaala iyo waxaan dhihi lahaa acmaasha saalixa waxaa ka mid a daawada ama daawooyinka quluubta islaaxiya waxaa ka mid a alqur'aan alkariim waana maadada ugu muhiimsan buu ka mid yahay waa kaan xalay soo sheegnay aayaddii qur-aanka rabbi yihi tabaaraka wa tacaala yaa ayuha annaasu qad jaa'atkum mawcidatu min rabbikum wa shifaaءun lima fi suduur wardadow waxaa idiin timid waana xagga rabbi ka timid iyo daawadii caafimaadkii laabaha waxa laabaha ku jira wixii daaweyn lahaa xagga rabbi buu idinka yimi oo muxuu yahay waa qur-aanka kariimka qul bifadli illaahi wabiraxmatihi fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun qur-aankaa laga hadlaya marka qur-aanku waa daawada ugu muhiimsan waa oo waa kaan soo tilmaanay darsigeennii horo aan kaga hadalnay waa goorma waa markuu ruuxu qur-aanka macnihiisana garanayo macnuhuna qalbiga galo oo ruuxu dhuuxo oo uu u dego markaasi waxa weeye cudurrada qalbiga ku jira waa saaraya wuxuu saarayaa gaalnimadii wuxuu saarayaa nifaaqii noocyadiisii kii ictiqaadiga kii camaligaha wuxuu saarayaa shakigii wuxuu saarayaa yani waxa weeye itibaacu lhawa iyo bidacii wuxuu saarayaa cudurradii kaleetee quluubta gelahayay xiqdigii iyo baqdaagii iyo xasadkii wuxuu dhan buu ka daaweynaya oo uu ka saaraya waa daawooyinka ugu muhiimsan bay ka mid tahay waxaa ka mid ah dikrullahi tabaaraka wa tacaala cumuuman ilahay dikrigiisa qur-aanku marka dikri la yidhaahdo qur-aanka ugu horeeya oo gala adkaarta kale iyo xuska ilahina waa soo gala tahliishii tasbiixdii muxuu ahaayey xamdigii takbiirtii xawqaladii waxaasoo dhan dikriyahay bay geli wax kastoo ilaahay jecel yahay oo carabka laga sheego marka qaarkood xubnuhu xataa ay qabtaan dikri bay geli marka ilaahay tabaaraka wa tacaala dikrigiisa oo uu ruuxu badiyo waxyaalaha qalbiga daawaye ka mid tahay oo nooleeya waa ka rabbi tabaaraka wa tacaala qur-aanka kariimka inoogu sheegay aladiina aamanuu watatma'inu quluubuhum bidikri illaah alaa bidikri illaahi tatma'inu lquluub quluubtu keliya waxay ku xasishaa ilaahay dikrigiisa xoolo kasta haddaad siiso qalbigu kuu degi maayo adduunka ad arkaysaan oo dhan haddii laguu uruuriyo qalbigaagu ku degi maayo laakiin ilaahay dikrigiisa iyo xuskiisa iyo xidhiirhkiisa ayaa quluubta xasilisa buu rabbi ilahi tabaraka yaa quluubta ku xasila alaa bidikri illaahi tatma'inu lquluub noloshani cidhiidhi bay kugu noqon haddaadan qalbigaagu ilahay ku xidhnayn tabaaraka wa tacaala saas daraaddeed baa liibaan aakharo iyo liibaan adduunye labadaba adduunkana inaad yacni dhib la-aan iyo nasiino iyo xasilooni iyo raaxo qalbi iyo kaga baxdo aakharana inaad liibaantii weyneyd u tagto damaanadeedu waxa weeyaan inaad ilaahay dikrigiisa ku tacalluqdo tabaaraka wa tacaala oo wax walba ka khayr badan sida meelo badan qur-aanka iyo sunnadu ku tilmaamaya waxaa ka mid ah muxuu ahaayey alikhaar min dikri alaakhira mowdka iyo wixii ka dambeeya xusuustooda inuu ruuxu badiyo qalbigani kullamaa adduunyada uu ku foofo oo damiciisu dheeraado oo amalkiisu dheeraado oo uu yidhaahdo dhiman maysid oo 20 sano 30 sano 50 sano istiraatiijiyadooda iskaga talagalo qorshe iska dejisto waxyaalaha wuxuu ka mid yahay sii lugoynayay ka mid tahay laakiin hadduu amalka soo gaabiyo oo uu ruuxu yidhaahdo berri baad dhiman kartaa
caawa lagu imaan karaa xisaabaadkiisu waa isbedelayaan dhaqankiisuna waa isbedelaya qalbigiisuna waa isbedelaya saas daraadeed caawa haddii dal lagu yimaado lagu dhaho bita'kiid berri meeshii lagu gaadho 8 subaxnimo waad dhimanaysaa caawa maxaad samayn lahay maxaad samayn lahay shaki ma laha waxaa laga yaabaa xataa guriga inaadan aadeen meeshan masaajidkan sujuudo inuu lagugu imaan lahaa maxaa keenaya marka waxaa keenaya علشان وحويان وقتيان دير يا أمل كان دير اسكدج ستين وحبا كتشرين أيا وحبا خربها أو قلبي قاعد يخربها أو طاعة دي خربها أو آخرة دي خربها صوت قابي مرك وحد بدي صح حسوس تجيري ده بدي صوت دوي والنبي قال صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات وحد بدي سان ميت مع عيال كجوية وجيري ده حسوستي سبدية هذا حسوس ومد النبي يقول صلى الله عليه وسلم قبور زيارته maxaa qubuurta loo siyaaranaya maaha meydka meesha ku jira wax laga raadsado bal al aks inaad adiga meydkana u soo ducayso qalbigana waa jilcisaa ishana waa ka ilmeysiisaa buu nabigu sallallahu alayhi wasallam markaad intaad xabaalaha tagto qubuurta tagto oo aad u tagto magaalo dhan oo ehel aakhira shalayna sida daaraha u dhisaysa u dhisahay oo damaca kugu jira ku jiray oo istiraatiijiyad iyo qorshayaal buu dejinahay oo wax uu tabcahay caadi aan ahayn maantana waa magaalo dhan oo dad istiraahdo warniyo adigana waxana tabcays iyo waxana daba ordiso halkan uu ku dambayn mayso shaki ma laha waxaad la soo noqonaysaa qalbigaad la tagtay mid aan ahayn baad la soo noqonay fikirkaad la tagtay mid aan ahayn baad la soo noqonay markaad ka sii gudubtood qabriga iyo hawlaha yaala aad u xusuusato oo kula seexato oo la soo toosto oo la socoto oo xaaladahaaga aad fikirkaaga ay ku badato sidoo kale waa lagu soo saari rabbiga baad la kulmaysaa hor istaagaysaa adoo kaliga oo wax ku heliye jirin talo maxaa jawaabtaadu noqon doontaa warnaartii iyo jahannamo korkeedaad mari doontaa wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya mid idin kamida ma jiro illa waa mari doonaa wartalo ma dadka ku daadan doono oo dhici doono oo la reebi doonaata mise nabad baad ku gudbi doontaa waa arin culus waa xaalado culus wartalo ma naar baad ku dambayn doontaa mise jannaad ku dambayn doontaa waxaasi markuu qalbigaaga aad ugu soo noqnoqdo qalbigaagu shaki male wax badan baa iska bedelay waana min afdal al-adwiya wal-ilaaj haddaad rabto qalbigaaga inaad daawayso waxyaalo badan ka saarto waxyaalaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah xusuusta aakhira badi xusuusta aakhiro qalbigaaga ha ku badato waxaa ka mid ah daawooyinka muhiimka ah in aad dunuubta ka fogaato laana quluubtan cudurkooduba dambi buu ka yimaadaa xadiidkii nabiga sallallahu alayhi wasallam ahad ay soo saareen nasaa'i geyrkii soo saareen nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam ida adnaba al-abdu dhanban adoonku markuu dambi galo akhta khati'a dambi buu galay nukita fi qalbi nuktatun sawda dhibic madow baa qalbiga lagu dhufanaya hadduu dambigii ka soo noqdo dhibicdii waa laga daahirinaya waa laga sifaynaya waa laga hagaajinaya markaas qalbigu iftiinkiisii soo xishanaya hadduu ku laabto isagoon ka soo noqonin dhibic labaad ilaa qalbigiisa ay daxasha iyo dhibcuhu madow wada qabsadaan waana miduu rabbi tilmaamay buu nabigu sallallahu alayhi wasallam kalla bal raana ala qulubihim ma kanu yaksibun qulubtooda waxa dabooshay wixii ay kasbanayeen dunuubtay galayeen baa qalbigii daxaleeyay oo qalbigii wada daboolay qalbigaasi marka qulubta waxa qaribay waa dunuubta dambiga iska jir ha ku dhicin bini aadam baa tahay oo waad ku dhiciye laakiin hay halmaanina ka soo noqo waxa lagu kala fiican yahay waa la wada dambaaba laakiin waxa lagu kala fiican yahay soo noqoshada way kullu bani aadam khata wa khayrul khata'ina tawwabun isdaba qabo durba soo noqo ساسا إله المؤمنين تكتل معه والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ذنبي ويقلان
laakiin markay galaan oo khalad ka galaan bay isxusuustaan markaas ilaahay dambi dhaaf weydiistaan wala tiri waliba xadiid xasan waxa ku soo arooray markaad dambiga gasho 6 saac baad jaanis haysataa oon la qoraynin oo malagii wax qori lahaa qalinka kor u haynaya waa lagu sugaya waa inaad soo noqoto 6 saacadaad gudahooda ku soo noqoto khalaas waaba la tuur hayaaba dambigiiba haddaad ku soo noqon weydo markaa waa la xariiqaya haddii la xariiqo xataa jaaniskii waa haysataa weli inta aan lagu qabanin oo qarqarisada aadan gaadhin jaaniskii waa haysataa ama adduunka baan la gabagabaynin sidaas daraaddeed dembiga iska ilaali haddaad gashana ha isku halmaamine towbadkeen qalbigaaga saamaynta ugu weyn iyo cudurrada ugu fara badan waxaa keenaya dunuubtaa keenaya saas daraaddeed waxay kuu jiidi midba midka ka daran buu kuu sii jiidaya waxaan kaga baxayaa igu dambeeya qodobadaasi quluubta lagu cilaajiyey oo lagu daaweeyo ducada inaad ilaahay barido tabaaraka wa tacaala inuu qalbigaaga daahiriyo ood rabbigaa weydiisay inuu qalbigaaga sugo ood allah weydiisato inuu qalbigaaga hanuuniyo nabigeenna sal alla alay wasalam sida xadiidka ay caaisha warinayso uu tilmaamayo waxay leedahay caaisha radi allahu tacaala canhumaa waxay leedahay nebiga ducadiisa waxaa ugu badnayd uu ku ducaysto allahuma yaa muqaliba alquluubi habbit qalbii calaa diinika allaha quluubta rogrogow qalbigayga diinta korkeeda ku sug markaasaa waxaan idhi bay tihi yaa rasuul allah maa akara maa tadcuu bihada ducaa badanaa inta aad ducadan uun ku ducaysanayso maxaad ducadan kaga maagtay ducooyinka kale markaasaa nebigu wuxuu yihi sal lla alay wasalam yaa caaisha ina quluuba alcibaadi bayna asbicayni min asaabici araxmaani yuqalibuha kayfa yasha addoommada quluubtoodu laba farood oo ilaahay farihiisa ka miday u dhaxeeyaan siduu doonuuna u rogrogaa marka waxaan ka baqayaa qalbigayga in la rogo ilaahay baan leeyahay qalbiga ii sug saasaan ilaahay u badinaya yaa waay ruuxaas waa nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa khayru khalqi illaah waa sayidu waladi bashar waladi aadam waa baqaya sidaas daraaddeed cid walbaa kaga habboon inay baqdo marka inaad marka ilaahay weydiisato inuu ku sugo oo qalbigaaga sugo khayrka jeclaysiiyo qalbigaaga hanuuniyo yaa musarif alquluubi sarif qalbii calaa taacatik ilaahu taacadaada iyo khayrka qalbigayga u leex xagiisa ilaahu u dub u dhihi jira salawaatu rabbi wasalaamu caleyh marka ducadu waa waxyaalaha ugu muhiimsan khaasatan ina allaha yaxuulu bayna almar'i wa qalbihi addoonka iyo qalbigiisa ilaahay baa kala teeda qalbiga ilaahay baa maamula saas daraaddeed rabbi baa gacanta ku haya ilaahu ii hagaaji haddaad tidhaahdo baahidaada muujiso ilaahay tabaaraka wa tacaala waa kuu hagaajinaya waxyaalaha ugu muhiimsane marka quluubta lagu hagaajiyo bay ka mid tahay ducada iyo baryada isbihinbihinta tadaruca ilahay inaad isu oohayso tabaaraka wa tacaala ayadana waa sabab ka mid a asbaabta quluubta lagu cilaajiyo wakhtiga ayaanan ka gaadhay inaan saamaxaynin inaan intaa ka badan aan mowduuca sii wadno laakiin muhimaddu waxa weeyaan meesha laynaga gaadhay waa qalbiguna daawuu leeyay waxaa aafo dhacaysoo dhanna fasaadka qalbigaa sabab u ah soo hadda ma lihin oo kama hadlayno dhibka adduunka inugu haysta iyo burburka iyo muxuu ahay khasaaraha iyo dhibaatooyinkan ina haysta kulli waxay ka yimaadeenoo asal u ah quluubtaa fasaaday markay quluubtu fasaadana xubnihii baa fasaaday markay fasaadeenna noloshii baa fasaaday halka wax laga bilaabi marka waxa weye in quluubta la islaaxiyo waa darsigii aan horey uga hadalnay quluubta in la islaaxiyo oo maadadii iyo daawadii lagu islaaxin lahaa la qaato yacni waxa weeyaan afraadan wa usaran wa majmuucaat wa mujtamacan inaan qaadano daawada iyada ruux walba uu qaato waxaa ku jira danteenna aakharo iyo danteenna adduunye labadaba as'al allaha tabaaraka wa tacala an yulhimana rushdana وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا